baaxadda joogitaankeeda ayaa argagax gelisay goobta dagaalka. Haltron oo ahaa naqshadeeyaha dhibaatadooda ayaa ku noqday gaalnimo iyo cabsi, isla weynidiisiina way burburtay iyadoo la eegayo muujintan rabbaaniga ah. maya awood badan ayuu ku qayliyey, qaylo naxdin leh oo ka dhan ah ciidan aan la jebin karin. Iyada oo aan cabsi ka qabin, Fartuun ayaa labadii gacmoodba kor u taagtay iyadoo tamar aan had lahayn oo caalamka ah ku ururisay calaacasheeda. Dhinaceeda, Cabdulaahi oo ay ku hoojisay jacaylkeeda iyo allabaryadeeda ayaa qabsaday gacantii seeftiisa, ruuxiisana uu ku shidan yahay hog isku mid ah. Awoodahooda shakhsiyeed waxay bilaabeen inay iswaafajiyaan oo ah simfooni awood iyo daacadnimo leh. Markii Fartuun ay awooddeeda cirka ku soo shubtay, Cabdulaahina uu tamartiisa geesinimada leh ku shubay daabkiisa, labadooda tamar ayaa isku milmay. Iskudarka ayaa abuuray muuqaal indholaan ah, iftiinka dhalaalaya oo ka xoog badan qorax kasta oo weligeed samada ku soo dhacday. Waxay ahayd muuqaal jireed oo ka mid ah qalbiyadooda midaysan, hub laga sameeyey jacayl saafi ah. Iyagoo wada jira, waxay sii daayeen awooddoodii isku dhafka ahayd. Iftiinka durdurka jacaylka iyo cadaaladda cirka oo laga toogtay meel bannaan oo Haltron ku dhuftay hooga kungalaxyo qarxaya. Saamayntu aad bay u badnayd. Haltron kaliya laguma guulaysan, wuu ka adkaaday, qaab ciyaareedkiisii mugdiga ahaana wuu go'ay, oo ay ku lumiyeen tamarta xad dhaafka ah ee jacaylkooda. Wuxuu ku burburay iftiinka ifka ee caalamka, nuxurkiisuna wuxuu isu beddelay wax aan jirin, jiritaankiisana waxaa tirtiray awood uusan weligiis fahmi karin.